السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مانتا waxaan rabaa inaan idin sharaxo filim awal saynisa oo la dhaho Ajin ama Haf bini aadan. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa hordhac ku saabsan ajinka. Ajinku waa nooc kamid ah taranta bini aadamka oo aan dhiman si kasta uu dhaawac u soo gaaro. Si ku meel gaara ayay u dhintaan kadibna nolosha ay ku soo laabtaan ama ay soo noolaadaan. 26 sano ka hor ajinkii ugu horeeyay waxa laga helay South Africa ilaa hadeerna 46 ajin ayaa laga helay caalamka oo dhan. Maalmo yar ka hor nin la dhaho Kinegai ayaa shil gaari ah galay waana uu dhintay. Si mucjiso leh ayuu u soo noolaaday, dhaawacii oo dhanna waa uu ka baaba'ay. Sidaa darteed dawladdu waxay u magacowday ajinkii saddexaad. Si dhaqso ah ayaa ay dawladdu ugu samaysay waardiye iyo ilaalin, laakiin sheekadu waxa ay noqotay in dawladdu ay tijaabin ku samayso ajinkii ay soo qabatay. Madaxa laabka baaritaanka Yusaki wuxuu dawladda tusay cilmi baaridii socotay, wuxuuna tusay inuusan Nagai ogeyn inuu yahay ajin. Intuusan shilka dhicin ka hor wuxuu ahaa arday caadi ah oo internship u jooga isbitaalka jaamacadda magaalada Tokyo. Si kadisa ayaa waardiyihii waxaa ku soo weeraray koox argagixisa oo kala ahaa Sato iyo Tanako oo yaqaana Tsuki laabka ninka madaxa ka ahaa. Waxayna dhaheen wuxuu rabaa inuu qaato Nagai. Waardiyihii ayaa isku dayay inuu si degdeg ah u joojiyo. Waardiyihii ayaa Sato ku soo weeraray daawada wax suuxisa, wuxuuna kaga dhuftay gacanta. Si lama filaana ayuu gacantiisii isaga gooyay, waxa uuna sii watay dagaalkiisii. In aan dheerayn kadib waxa ay kaga dhufteen daawadii garabkiisa, laakiin markan waa uu istoogtay wuuna dhintay. Kadib waa uu soo noolaaday isagoo ajin ah oo hadda gacan cusub leh. Xoogaa yar kadib Sato waxa uu sii daayay Nagai, wuxuuna sii watay inuu laayo cilmi baarayaashii. Intaa kadib waxa uu qorigiisii u dhiibtay Nagai, waxauna u sheegay inuu laayo cilmi baarayaashii soo haray. Waa cajiibe, Nagai waa uu ka diiday, laakiin Sato wuxuu siiyay tusaale oo wuxuu toogtay mid kamid ah cilmi baarayaashii. Taas darteed Nagai wuxuu isagana toogtay Sato, wuxuuna ka cararay cilmi baarayaashii soo haray intii uu Sato soo noolaanayay. Aakhirkii Sato wuu wada qabtay, markaana wuxuu samaystay nolol la dhaho Black Costi, wuxuuna ku weeraray cilmi baarayaashii. Isla markiiba Nagai waxaa dhiiggiisii ka samaysmay noole kale si uu uga difaaco Black Costiga cilmi baarayaasha. Labadii noole way isdagaaleen. Nagaina wuu fakaday. Inta ay isdagaalayeen isagoo sii cararaya ayaa waxa soo qabtay Sato. Markaan Nagai waxa uu noolihiisa u isticmaalay inuu kula dagaalo Sato, markaana wuu fakaday. Ciid iyo boor ayaa isqabsaday. Wariyaashii goobta ayaa ay yimaadeen si ay warka u tabiyaan. dabcan qorshahan waxaa diyaariyay Sato. Isaga iyo Tanako waxay yimaadeen meeshii wariyaashu joogeen, waxayna warkii cilmi baarista ajinka ku faafiyeen warbaahinta. Sato wuxuu dadweynaha u cadeeyay inuu yahay ajin, wuxuuna sheegay inuu dawladda ka badbaadiyay ajinka labaad ee Tanaka. Waxay internetka soo geliyeen Tanaka oo la tijaabinayo oo xabad lagu dhufanayo. Kadibna Sato wuxuu dalbaday xuquuqda madaniga ah ee ajinka iyo meel gaar ah oo ay ajinku ku noolaadaan. Maalintii xigtay Nagai waxa uu la kulmay islaan waayeela oo ku marti qaaday gurigeeda, wuuna yeelay, wuxuuna ku nagaaday halkaas. Isbitaalka gabar la dhaho Isumi ayaa Nagai walaashiis oo la dhaho Erika waxa ay weydiisay meel uu jiro iyo xaaladiisa. Isla markiiba Isumi waxa soo weeraray Black Costiga Tanaka, kaasoo leh awood aan la arki karin. Aan imaano misna Tanaka oo jooga banaanka isbitaalka wuxuu noolahan Black Costiga u isticmaalay inuu ku soo qabto Erika si ay ugu soo qabtaan Nagai. yacni walaasha baan haysanaa, noo imo ama waan dilaynaa. Waayabe Isumi laftigeedu waa ajin kale, waxayna si kadisa u weerartay noolihii Tanaka maadaama uu noolihiisu daciif yahay. Markii uu ku fog yahay wuxuu yimid isbitaalka waqti aan badnayn kadib. Erika waxa u yimid dad badan, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu Sato dib uga laabto. Shirka ayaa waxaa ka hadlay Tsuki, wuxuuna u soo jawaabay Sato. wuu diiday fiidiyowgii ay soo geliyeen internetka, wuxuuna yiri waa been abuur. Waqti kadib Nagai waxa uu caawinayay islaantii waayeelka ahayd. Waqti yar kadibna wuxuu warka raadiyaha ka maqlay in walaashiis la soo weeraray. Arrintaas darteedna waxa uu si degdeg ah u aaday isbitaalka. Isbitaalka korkiisa ayuu kula kulmay Eriko, wuxuuna u sheegay inay halkaasi ammaan ku ahayn. Sidaa darteedna wuxuu go'aansaday inuu geeyo guriga islaanta duqda ah. Maalintii xigtay naftiisa ayuu tababaray,
wuxuuna isku dayay inuu kontaroolo noolaha uu haysto. Ayaan kadib Sato wuxuu u soo jawaabay dowladda wuxuuna sheegay inuu isticmaali doono awoodda uuna soo weerari doono burburin doonana wasaaradaha cilmi baarista samaysay. Waqti ayuu u sheegay wuxuuna ajinyada kale ee isqarinaya inay dagaalka la galaan. Xilligii uu qabtay markii la gaaray, booliska ayaa wardiye ka qabtay meeshii wasaaradda ahayd. wasiirkii wuxuu ku jiray wasaaradda gudaheeda wuxuuna sheegay inaysan waxbana dhici doonin. isla markiiba diyaarad ayaa soo dhacday waxayna ku burburtay dhismaha wasaaradda. waxaa intaa xigay Sato oo diyaaradda ku jiray iyo Tanako oo alaabtiisii ku soo urursanaya daroon. sidoo kale dad ayaa u yimid Sato ogeysiiskiisii si ay u caawiyaan. waqti aan dheerayn kadibna Sato waxaa hareereeyay booliska waana la toogtay waana uu dhintay. boolisku xabadda ayaa ay ku sii wadeen si uusan u soo noolaan. intaa kadib Tanako ayaa booliskii mid u toogtay qori sniper ah si uu uga reebo una xoreeyo Sato. kadib Sato waxa uu ka guuleystay booliskii oo dhan isagoo isticmaalaya awoodiisa ajinka. intaa kadibna waxa uu ka dalbaday dowladda inay isdhiibto 20 maalmood gudahood, haddii kale waxa uu ku buufin doonaa Tokyo oo dhan AGVX gas oo ah sida ugu fiican ee loo dili karo tiro badan. cabaar kadib Nagai iyo walaashiis waxay ka soo carareen islaantii waayeelka ahayd gurigeedii, waayo dadka tuulada waxay ogaadeen in Nagai uu yahay ajin. maalmo kadib Tsuki wuxuu la xiriiray Sako wuxuuna siiyay waqooyiga Hokkaido oo ah xaafad ka mid ah Tokyo maadaama uu ka dalbaday Tokyo oo dhan waana uu ka diiday. Tsuki isagoo guriga u sii socda ayuu arkay in Nagai uu ku sugayo wadada. Nagai waxa uu sheegay Tsuki inuu ka difaaci doono weerarka Sato, taasoo beddelkeedana ay dowladdu u ilaaliso walaashiis isagana ay dhalashada u bedelaan. Tsuki wuu aqbalay heshiiskii waxayna bilaabeen inay qorsheeyaan istiraatiijiyadii ay ku wajihi lahaayeen Sato. dhinaca kalena Sato iyo ciidankiisa waxay u diyaar garoobeen weerarka. intaa kadib waxaa xigay Tanako oo ahaa doofaar 2 sano iyo Sato oo 20 sano doofaar ahaa, waana sababta ay u necib yihiin bani aadanka. maalintii weerarka markii la gaaray waxa weerarkii bilaabay Sato oo ku bilaabay nin raggiisa ka mid ah oo dhismaha dowladda ku galaya gaari curyaan, wuxuuna jabsaday oo kharaabiyay systemkii dowladda. kadibna Tanako iyo ciidan kale ayaa xoog ku soo galay waxayna gudaha u sii galeen albaabka degdega looga baxo emergency exit waxayna sii aadeen kor iyo meeshii gaasku yaalay. waxaan badnayn kadib Tsuki wuxuu qabtay hackerkii. Tanako wuxuu soo gaaray qolkii gaasku yaalay isla markiiba qiiq madow ayaa ka furtay wuxuuna ku qariyay meeshii gaasku yaalay. waxaa intaa xigtay qiiq madow oo uu soo daynayay Nagai. qiiqan madow dartiisna si fiican waxuma arki karaan. fursadana waxa ka faa'iideystay booliskii oo suuxiyay Tanako iyo intii kale ee la socotayba. isla markaasna Tanako wuxuu yimid meeshii xabadda la dhigo wuxuuna dhex galay mashiinkii xabadda burburiya. si aan la filayn ayuu uga soo dhex baxay dhismihii una soo noolaaday. waxaa xigtay isagoo gacantiisa sii jiray oo uu Tanako u keenay Nagai iyo booliska iyagoo la yaaban ayay isticmaaleen taktikadan waxayna ku dhufteen suuxiyihii. markii qof uu soo dhawaadayna ayuu kacay wuxuuna isku wareejiyay noolihiisii kadibna wuxuu laayay waardiyihii intii soo hartay. intaa kadib waxa uu sii daayay Tanako waxayna qaateen gaaskii AGVX gaaska. kadibna Sato waxa uu guulay dhismaha korkiisa wuxuuna ku wargeliyay Nagai inuu yimaado halkan. sidoo kale si shaki la'aana ayuu kor u aaday Nagai wuxuuna gacanta uga dhigay gaaskii. kadibna labadoodii iyo labadii noole ayaa isdagaalay. intaa kadibna Tsuki wuxuu wajahay Tanako laakiin Tanako wuxuu ku weeraray noolihiisii. isla markiiba waxaa timid Izumi si ay u caawiso Tsuki si aan loo dilin. labadoodii noole ayaa isdilay. labadii mulkiilaha faraha ay isla galeen. Tanaka wuu ku xoog batay Izumi halka uu durbadiiba yimid Tsuki oo suuxiyihii la dhacay Tanaka. sidaa darteedna waa ay ka adkaadeen
Tanaka daawadii baana suuxisay. haddaan u laabano Nagai iyo Sato, dagaal xun ayaa socda. Satana aad ayaa ugu faraxsanaa maadaama uu si fiican u koray isbuucyadii u dambeysay. Nagai ayaa Sato ku dhuftay suuxiyihii wuuna suuxay, laakiin noolihiisii ma suuxin. noolihiina wuxuu degdeg u dilay Sato, kadibna wuu soo noolaaday. markii uu damcay inuu dilo Nagai, waxaa markiiba guriga korkiisa ka soo daatay xoogag boolisa, waxayna Sato ku weerareen qoryo koronto leh. kadibna Nagai ayaa qabtay Sato, labadoodiina waxaa barafeeyay booliska. kadib booliska labadoodii way burburiyeen, waxayna ururiyeen qaybihii jirkooda, waxayna ka dhigeen kuwo aan awood u lahayn inay dib u soo kacaan. filinka dhammaadkiisii, Tsuki wuu jabiyey ballantii uu Nagai ka qaaday dalabkiisii oo aad u badnaa darteed. sikadiisa gacantii Nagai ee la jaray markii hore ayaa bilowday inay samaysanto oo u soo noolaato tartiib tartiib. intaa kadibna waxa uu ka baxay dhismihii korkiisa waana uu cararay.